halkani waa BBC oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waa maalin talaadaha 2 bisha Agost, saacaduna waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo. barnaamijka subaxnimo waxaad ku dhagaysan doontaan Mareykanka oo hogaamiyaha Al-Qaacida ku dilay duqeyn diyaaradaha duuliyaha lahayn oo ka dhacday dalka Afghanistan. Joe Biden oo xaqiijiyay After carefully considering the clear and convincing evidence of his location, I authorized a precision strike that would remove him from the battlefield. golaha baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida oo ansixiyay miisaaniyadda sanadka oo gaaraysa ku dhawaad $590 milyan oo dollar. meelaha xoog saaraysan ku jirta amniga يعني waxa ugu muhiimsan hada lagu qaabili doono amniga buu noqon doona marka miisaaniyad la yiraahdo miisaaniyadda kaydka guud oo sanadkan aan kor u qaadnay waa jirta boqolkiiba waxaanu gaarsiinay 8 kaydka guud ee miisaaniyadda inteeda badan ku talagalkeeda hadda waxyaalaha prioritiska ee laga tixgelin doono amniga kamida marka maamulka deegaanka Gaarisa oo bilaabay ololaha talaalka yellow fever ogayaha guud ee qaramada midoobay oo sheegay in caalamku halis ugu jiro in hubka nuclearka uu baabi'iyo iyo wararkii cayaaraha. barnaamijka waxaa soo saaray xasan cali gele waxa idin la socodsiinaya anigoo maxamed shiil xasan. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdishakuur Cabdulaahi Casowe. mahadsanid maxamed shiil xasan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay in duqeyn dhanka cirka ah oo uu Mareykanku fuliyay lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. waxa uu sheegay in uu isagu fasaxay howlgalka oo sabtidii ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimadda u ah dalka Afghanistan. Biden ayaa sheegay in Ayman al-Zawahiri uu si qoto dheer ugu lug lahaa weeraradii Mareykanka laga fuliyay 11kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2001 kuwaasi oo lagu dilay ku dhawaad 3,000 oo qof. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaas ku daray in dilka al-Zawahiri uu war fiican u yahay qoysaska dadkii lagu dilay weerarada. Biden oo sanadkii hore ciidamada Mareykanka ka soo saaray Afghanistan ayaa ku adkaystay in wadankaas uusan weligiis mar dambe goob ammaan ah u noqon doonin kooxaha argagixisada. warbaahinta Taiwan ayaa shaacisay in afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay qorsheynayso inay maanta booqasho ku tagto jasiiradaas. hase yeeshee Pelosi oo hadda safar ku maraysa Aasiya weli si rasmi ah uma aysan xaqiijinin arrintaas. nin xubinka ah koox hogeysan oo ka soo jeeda gobolka Texas oo isku dayay inuu isagoo qori wata xoog ku galo dhismaha baarlamaanka Mareykanka ee US Capitol ayaa lagu riday xukun ka badan 7 sano oo xabsi ah. Guy Reffitt ayaa sidoo kale lagu helay dambi ku saabsan in uu ku hanjabay waxyeeleynta caruurtiisa oo 12 jiro ah kuwaas oo isaga u gacan galiyay FBI-da. ugu dambeyntiina madaxweynaha Mexico Andrés Manuel López ayaa la wareegay dhul baaxadiisu la eg tahay qiyaastii 100 hektar si loo hormariyo dhismaha wado tareen oo ay ku baxayso balaayiin dollar. wadadaas oo dhererkeedu yahay 1500 oo kiiloomitir ayaa horeyba loo bilaabay dhismaheeda waxaana ujeedadeeda uu yahay in ay isku xirto goobaha loo dalxiiska tago. warkii caalamka oo nageyntaas shiil. waa tahay aad buu u mahadsan yahay Cabdishakuur Cabdulaahi Casowe oo warkii caalamka nala socodsiinay. waa tahay sida aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku ay duqeyn dhinaca cirka ay ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. waxa uu sheegay in shakhsiyan isagu uu amarka ku bixiyay howlgalkaasi oo sabtidii ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. xasan cali gele ayaa faahfaahintaas inoo haya. maxamed shiil madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu xaqiijiyay in Mareykanku uu duqeyn dhanka cirka waliba la adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan lagu dilay hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri waxa uu xukunka la wareegay ama ururka Al-Qaacida hogaankiisa la wareegay kadib markii la dilay hogaamiyihii hore ee xisbigaasi Osama bin Laden. markii uu ku dhawaaqayay madaxweyne Biden waxa uu sheegay in isaga shakhsiyan uu amarkaasi bixiyay ka oo ka dhacay ama duqeyntaas oo ka dhacday magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan sabtidii. hadaladiisina waxa ka mid ahaa
After carefully considering the clear and convincing evidence of his location, kadib marka si fiican loogu fiirsaday oo la helay caddaymo ku filan goobtiisa waxaan amray in lala beegsado duqayn saxa oo isaga ka saari karta goobta dagaalka gebi ahaanba howlgalkan wuxuu ahaa mid si wanaagsan loo qorsheeyey islamarkaana aad loo yareeyey khatarta ay waxyeella kaga soo gaari kartay rayd kale toddobaad ka hor markii la igula taliyey in xaaladdu ay ahayd tii ugu wanaagsanayd waxaan bixiyey ogolaanshihii ugu dambeeyey ee lagu dili lahaa howlgalkan wuxuu ahaa mid guulaystay qoyskiisa xubno ka tirsan waxyeel lama soo gaarin mana jirin cid rayd ah oo wax ku noqotay madaxweyne biden waxa uu sheegay in ayman al-zawahiri uu ahaa ku-xigeenka cusaama bin laden islamarkaana uu aada ugu lug lahaa weerarkii 11 sebtembar sanadkii 2001 lagu qaaday gudaha dalka maraykanka ka uu sheegay inay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof hadda cadaaladii baa la gaaray hogaamiyihii argagixisadana waa u dhammaatay dadka caalamka uma baahan doonaan inay ka baqaan hogaamiyahan manaxaha iyo dilaagan madaxa adag maraykanku waxay sii wadayaan in ay muujiyaan wax xallinteenna iyo awoodda aan u leenahay in aan difaacno dadka maraykanka kana difaacno kuwa doonayay inayna dhibaateeyaan waxa uu sheegay madaxweyne biden in dilka hogaamiyaha alqaacida al-zawahiri uu soo afjarayo xukunkii ama xanuunkii haye aan yidhaahdee qoysaska dadkii weeraradaasi ku dhintay waxa uuna sheegay in dadkaasi ay haatan safri karaan maadaama ninkii soo abaabulay meesha laga saaray maraykanku ma doonayaan dagaalkan ay kula jiraan argagaxa waana loo keenay waxaan kaga jawaabnay mubaadi isku mid ah iyo xal inaga dhigay kuwa fac ilaa fac in ay isdifaacaan ku taagan dadkoodana difaacaan difaaca xorriyadda waxaan diiradda ku saaraynaa xorriyadda shilbirka gubanaya ee caalamka intiisa kale tan waa mid weyn oo qeexaysa runta ku saabsan qarankeenna iyo dadkeenna ma jebinayno taas isma dhiibayno gadaalna uma noqonayno dhanka kale al-zawahiri waxa uu sheegay in uu doonayo in maraykanka mustaqbalka uu noqdo meel ammaan ah oo laga hortago dhibaatooyinka ay geysanayaan ururada sida alqaacida oo kale waxa uuna sheegay in afghanistan mustaqbalka uu doonayo inuu noqdo mid amnigiis uu sugan yahay dadka caalamka ee sii wada in ay dhibaateeyaan maraykanka way maqlayaan mar kasta waa in aan feejignaana waa inaan jawaab celin doonaa waana samayn doonaa wax kasta oo lagama maarmaan u ah hubinta badqabka iyo ammaanka dadka maraykanka gudaha iyo dibadda maantana waxaan xusuusanaynaa dhibaatadii hore ee na soo gaartay waxaan ku adagnahay badbaado ku noolaanshaha waxaana codsanaynaa in aanan weligeen ka labalabayn difaaca qaranka iyo dadkeenna kaas wuxuu ahaa madaxweynaha dalka maraykanka jo biden oo ka hadlayay dilka hogaamiyaha alqaacida ayman al-zawahiri oo uu xalay saqdhexe uu ku dhawaaqay in maraykanka uu ninkaasi uu dilay shil waa tahay xasanow ma ka hadleen maraykanku sidii wax u dhaceen bal qaabka ninkaa loo dilay maraykanku dabcan waa sidan haatan oo ka hadlay oo ah in biden uu sheegaya in ninkaasi markii xogtiisa la helay la dilay oo la beer tilmaameedsay waxaa se kala jirtay in saacado ka hor madaxweyne biden inta uusan warkan shaacin uu afhayeen u hadlay ururka taalibaan oo lagu magacaabo zabibullah mujaahid uu sheegay in maraykanku uu duqeyn cirka ah ka geystay gudaha magaalada kaabul balse marna ma uusan soo hadal qaadin in la dilay ayman al-zawahiri waxa uu cambaaray duqeyntaasi waxa uuna ku tilmaamay xadgudub shuruucda caalamiga ahi saraakiil sarsare oo ka tirsan maraykanka ayaa lagu soo warramaya in ay sheegeen in xubnaha ururka taalibaanku ay sii ogaayeen joogitaanka al-zawahiri uu joogo magaalada kaabul arrintaasina waxay tahay bay yidhaahdeen mid ku ah heshiiskii dhex marayay maraykanka iyo ururka taalibaan ka hor inta maraykanku uusan ciidamadiisa kala bixin caasimada ama guud ahaan dalkaasi afghanistan
sanadkii lasoo dhaafay marka waxay leeyihiin maraykanku ay dabcan arintani waa uu ku khaldamay ay leeyihiin saraakiisha ururka taalibaan laakiin marnaba iyaga afkooda lagama hayo in la dilay ayman azawahiri laakiin waxaan ognahay in marar hore oo badan sanado hore ay soo baxayeen in ayman azawahiri la dilay inkastoo aysan dhicin in madaxweyne maraykan uu shaacaso inta soo istaago fagaaraha uu yidhaahdo annagaa xaqiijinay waa la dilay laakiin mowqifkooda rasmiga ah ma yahay mid cad mise weli waxay ku taagan yihiin eedayntaas ay u jeedinayaan maraykanka maadaama aysan soo hadal qaadin in ay dileen ninka la yidhaahdo ayman azawahiri ama duqayntaas uu ku dhintay taalibaanku waxay sheegayaan oo keliya in weerar uu dhacay taa keliya ayay og yihiin marka ayman azawahiri marka laga hadlo waa nin caankii ah ninkaas ayman al-zawahiri waxa uu ku dhashay caasimadda masar ee qaahira bishii juun 19 sanadkii 1951 waxa uu ka soo jeedaa qoys dabaqada dhexe ah oo la yaqaan oo waxaana ay ku jiraan dhakhaatiir iyo culimo badan awowgiis raxiib al-zawahiri waxa uu hayay jagada sheekhnimada ee masaajidka al-azhar oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan barashada diinta islaamka ee sunniga bariga dhexe dabcan hal ka mid ah abtiyaashiisana wuxuu ahaa xogahihii ugu horeeyey ee jaamacadda carabta waxaan ognahay al-zawahiri in uu ahaa nin in muddo ahba ee maraykanka iyo wadamada inta kale caalamka ee laga hadalhayey inkastoo uu ku dhashay masar haddana waxa uu ahaa nin jooga dalka afghanistan oo dabcan waa xaruntii taalibaanku ay ka howlgalayeen waxaa lagu tilmaami jiray inuu gacanta midig u ahaa cusaama bin laden uuna wax badan ka abaabulay ka ogyahay ama ka abaabulay fikradda ay ku dhisan tahay ama uu ku dhisan yahay ururka al-qaacida al-zawahiri waxa uu waxbarashadiisii asaasiga ku qaatay iskuulka helipolis kadibna wuxuu ku biiray jaamacadda qaahiro oo uu ka bartay cilmiga dhakhtarnimada ee qaliinka guud ninkan waxa uu ururada islaamiga ku biiray isagoo aad u da'yar waxa uuna tagay meelo kala duwan oo ay fariisimo ku leehaayeen ururadan islaamiga ilaa markii dambe saldhigyo ay ka samaysteen dalalka bakistan iyo afghanistan sanadadii midowgii soviyeed ciidamadiisii kala baxayay dalka afghanistan al-zawahiri waxa uu sida la aaminsan yahay ku noolaa dalka bulgaria dalalka bulgaria denmark iyo switzerland mararka qaarna waxa uu baasaboorro sida la sheegay been abuur ah u adeegsanayay safaro uu ku tegayay wadamada balkanska austria yemen ciraaq iran iyo philippines xukuumaddii washington ayaa markaasi al-zawahiri u aqoonsatay qofka labaad ee uu lagu doondoonista badan yahay dunida laakiin waxa uu si rasmi ah xukunka ama hogaanka al-qaacida loo wareegay markii la dilay hogaamiyihii al-qaacida waa cusaama bin laden aad buu u mahadsan yahay xasan cali geele oo faahfaahintaasi inuu hayay dhinaca facebooka hadda haddii aynu aadno safaari maxamed nuur oo jooga muqdisho waxa uu leeyahay mar walba waxaan maqalnaa waxbaa duqayn lagu dilay haddana wax isbedelay ma lahan anigu waxay ila tahay in la joogo xilligii miiska wadahadalka la isugu iman lahaa yiri sidoo kale waxaa isna halkan fikradiisa ka dhiibanaya axmed maxamed xasan bilaag nin la yidhaahdo waxaan uu leeyahay dilka ninkan mar waa guul marna waa culays waayo ilaahay waxa uu yiri allaha fududeeya arrimahaas kuwaasna waxay ahaayeen dhegeystayaasha dhinaca facebooka aaraadooda ka soo dhiibanayay halka aad naga dhegeysanaysaanna waa b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay kalfadhigii saddexaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida ayaa shalay lasoo gabagabeeyey ajendayaasha uu guluhu meel mariyey waxaa ka mid ah miisaaniyadda dowlad deegaanka soomaalida ee sanadkan taas oo dhan 31 bilyan oo biir una dhigantaa 590 milyan oo dollar korarka miisaaniyadda ee sanadkan ayaa hooseeya waxaana arrimahaas aan wax ka weydiinay wasiirka maaliyadda deegaankaasi cabdiraxmaan axmed waxaana uu u waramay wariye ismaaciil buurgaabo guud ahaan miisaaniyadda kalfadhigan hadda lagu ansixiyey miisaaniyadka 2015 tirsiga Itoobiya waa miisaaniyad u dhiganta 31 bilyan oo Ethiopian bir ah miisaaniyaddani waxay ka sarreysaa miisaaniyaddii kal hore la ansixiyey 8% ka sarreysaa markii loo eego korarka sanadlaha miisaaniyadihiisa labadii hore
ka hooseysa sanadii hore 20 ilaa iyo inta u dhaxaysa 25 buu kordhi jiray sanadkan laakiin boqolkiiba 8 bay korodhay marka ilaha miisaaniyadu ka imanaysa maadaama dhowr ilood yihiin isha ugu muhiimsan miisaaniyada cadadka ugu badan ka yimaado taakulada dowladda federaalka ay siisay deegaamada taas sanadkan ka hooseysa sanadii hore aad uga hooseysa boqolkiiba 3 uu korodhay halka sanadkii ka horeysay boqolkiiba 19 ay ahayd sanadii ka horeeyay dhowr iyo 20 dhowr iyo 30 ay ahaan jirtay taasi waxoogaa sawir waxay ka bixinaysaa wacyiga guud ee dhaqaalaha waddanka iyo kiyo miisaaniyad fara badan oo miisaaniyada guud ee waddanka loo qabtay inteedii badnayd heer federaal lagu reebo in hay'adaha federaal ka shaqeeya shaqooyinkooda lagu reebay ka dhigantahay deegaamada wax loo qeybiyey waxa sanadkii hore loo qeybiyey wax badan ma kala foga deegaamada qaab waxay u kordhin deegaanka Soomaaliya deegaamada ugu roon ka mid ah boqolkiiba 3 u korodho sanadkii hore 20 bilyan bay ahayd kana waa waxa ku dhow 25 bilyan weeyaan marka 500 milyan baa u dhaxaysa way hay maadaama hadda ay hoos u dhac ku yimid kororkii sanadlaha ahaa oo miisaaniyada ugu badan aad ka helayseen kamista dhanka dowladda dhexe ma la dhihi karaa guud ahaan dhaqaalaha dalka ay ka turjumaysaa hoos u dhacaasi ku yimid miisaaniyada deegaanada isha ugu muhiimsan miisaaniyad waa kamista federaalka filashadii koror ugu jira oo boqolkiiba 3 baan ku leeyahay oo sanadkii hore miisaaniyadii sanadkan ka badan laakiinse kororkii sanadlaha ahaa waa sanadkan uu ka hooseeya sanadii hore soo aan jiray dhinac markii laga eego way ka turjumaysaa oo miisaaniyada la qaybiyay ee lagu taakulaynayo deegaamada oo deegaankeena si weyn ugu tiirsan yahay miisaaniyada federaalka ku taageertay isha ugu muhiimsanayd baa sanadkan ugu caanayar halka marka intaas yani wala dhigi karaa xaaladda jirta yaa saameyn ku yeelatay dhaqaale ahaan in deegaamada miisaaniyada inta leeg loo dhaadhiciyo guud ahaan miisaaniyada deegaamada iyo waddanka loo kala qaybiyo federaalka iyo deegaamada loo kala qaybiyo boqolkiiba 30 yaa deegaamada loo soo dhaadhiciyaa boqolkiiba 70 federaalka lagu reebaa marka sanadkan laakiin sanadka hore isbedel badan ma laha sidii yacni uu ahaan jiray uu kororku ahaan jiray uu ka hooseeyaa waad ma garan kartaa xaaladda dhaqaalaha inay daris la tahay xaalada amni ayaa soo usboonaaday iyo colaado dhanka xadadka deegaanka ah marka miisaaniyadan wax ma loo qoondeeyey dhinaca amniga طبعا maadaama deegaankeenu muddada 4 sano ahayd ay haddaan socdaan ku guda jirnay ay deegaan xasiloon u ahaa horumarka ayaa aad looga horjeedsaday oo dhaqaale fara badan oo waagi hore deegaan wuxuu ahaa qulqulatooyinkii siyaasadeed iyo amniga ka jiray uu dhibaatooyinka tacadiga mooyaane in badan oo ka mid ah miisaaniyadda nabadgelyada ka geli jirtay marka 3 sano 4 sano ugu dambeysay waxoogaa waxaa la helay nafisa in laga horjeedsado waxyaalihii daruuriyaadka ah ee horumarka ay binaadamku u baahnaa siyaasaadta laftirkeeda weli miisaaniyadda qaybta ka gasha amniga weli way kuusan tahay sanadkii dhaweeto maadaama ay qulqulato guud oo amni waddanka ka jiray shaqooyin fara badan oo amni hadday tahay ciidamo cusub oo dufcado cusub oo la tababaray hadday noqoto iyaga qalabaynteedu hadday noqoto tababar iyo dhaqdhaqaaqa ciidamo fara badan jiray miisaaniyad fara badan oo gashay baa jirtay amniga gashay ilaa iyo hadda miisaaniyadda loo qiimeeyo qaylaamaha amniga iyo suutaanka amniga weli markii loo eego miisaaniyadda deegaanku ay badan tahay miisaaniyad ku soo weeyaan xaaladda hadda ay nala soo darseen waxay daruuri ka dhigaysaa in la sii kordhiyo marka laba qaybood waa miisaaniyaddii caadiga ahayd ee sanadlaha ahayd ee loo qorsheyn jiray amniga sideedii baa tiyo talagalkeeda ay leedahay inuu amnigu yahay ahmiyadda koowaad iyo u qorshaysnayd xaaladdan hadda ay nala soo darsayna qoonda dheeri ay kusoo kordhisay baa jirto oo ah in feegshignaansho xagga mataqaana ilaalinta amniga oo wixii kharashaadka ah loogu talagalay hadday noqon lahayd ciidamo cusub dhisitaankooda hadday noqon lahayd sugidda amniga miisaaniyad loogu talagalay baa jira laakiin toddobaadyadii ugu dambeeyey ayay dhaceen qulqulatooyinka iyo dhibaatooyinka ka socda xadka inta badanna miisaaniyadda waxaa la diyaariyaa bilo ka hor marka ma ku darteen miisaaniyaddan ilaalinta xadka dheer ee deegaanka ula wadaaga dalka Soomaaliya iyo weerarka shabaab ma lagu daray miisaaniyadda cusub wallaahi hadda dagaalkan ugu dambeeyay hadda tobankan beriyo inoo dambeeyeen buu wacyiga noocan aynu wajahnay kolley laba qaybood baa loo qaybiyaa miisaaniyadda amniga laga shaqeeyo midna waa midda joogtada caadiga loo qoondeeyo midna waa miisaaniyad amni kaliya aan la dhihin miisaaniyadda kaydka ee emergency-ga loo isticmaalaa marka miisaaniyad waxaa jirta loogu talagalay waxyaalaha aan la saadaalin karin miisaaniyad ahaan ee kolba inagu soo kordha miisaaniyadda hadda yani waxa ugu muhiimsan hadda lagu qaabili doono amnigan buu noqon doona marka miisaaniyad la yidhahdo miisaaniyadda kaydka guud oo sanadkan aanu kor u qaadnay waa jirta boqolkiiba waxaanu gaarsiinay 8 marka lacagta xagga lagu qabtay kaydka guud ee miisaaniyadda inteeda badan ku talagalkeeda hadda waxyaalaha prioritiska ee laga tixgelin doono amniga ka mid ah marka waan dhihi karaa miisaaniyad waanu haynaa walow aan la dhihin maanta ha loo fasaxo oo kood miisaaniyadeeda oo xagga amniga aan lagu wareejinin haddana kaydku wuxuu u yaalla ee loogu talagalay in lagaga jawaabo xaaladaha la saalaadin karin hadda kuwaynu wajahno ee amniga waa tahay kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan axmed wasiirka maaliyadda ee dowlad deegaanka soomaalida oo u waramayay ismaaciil buurgaabo xubnaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in caalamka
halis uu ugu jiro hubka nukliyeerka inuu baabi'iyo. Antonio Guterres ayaa hadalkan xanuunka leh ka jeediyey magaalada New York xilli uu ka hadlayay shirweyne ay lahaayeen dalalka saxiixay heshiiska xadaynta hubka nukliyeerka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xasan Cali Gelle. isagoo ka hadlayay shir ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in halista dhabta ah ee musiibo ka dhalata hubka nuclear-ka ay haatan ka badan tahay tii jirtay tan iyo dagaalkii qaboobaa ee adduunka. waxa uu si gooni ah farta ugu fiiqay duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine iyo sidoo kale xiisadda sii taraysay ka jirta gacanka Kuuriya iyo gobolka Bariga Dhexe. waxa wadamada caalamka ku eedeeyay inay baadigoobayaan amni been abuur ah iyagoo buu yiri kaydsanaya hub aad u tiro badan oo nuclear ah isla markaana $100 bilyan oo dollar ku bixinaya waxa uu ku tilmaamay hubka qiyaamaha. Humanity is in danger of forgetting the lessons forged. bini'aadamadu waxay khatar ugu jirtaa in la ilaabay casharadii laga bartay qaraxyadii argagaxa lahaa ee Hiroshima iyo Nagasaki. xiisadaha ka taagan caalamka cirka ay isku shareerayaan waxayna gaarayaan meelo cusub. tartanka wuxuu ka dheeraynayaa iskaashiga iyo wada shaqaynta. ismaciibka ayaa bedelay wada xaajoodkii sidoo kalena tafaraaruqa ayaa bedelay hubka dhigistii. dalalku waxay raadinayaan nabadgelyo aan jirin iyagoo urursanaya $100 bilyan oo dollar oo ay ku qarash gareeyaan hubka qiyaamaha taas oo aan meel ku lahayn dunida aan ku noolnahay. qiyaastii 13,000 kun oo hubka nukliyeerka ah ayaa haatan caalamku lagu haystaa. waxaas oo dhan waxay dhacayaan xilli khatarta isticmaalka hubkaas ay sii kordhayso ayna sii daciifayso qaababka looga hortagi karo. And guardrails to prevent escalation are weakening. Antonio Guterres ayaa ugu baaqay wadamada caalamka ee xubinta ka ah heshiiska ka hortagga faafitaanka hubka nuclear-ka inay xoojiyaan heshiiskaasi ka oo dhaqan galay sanadkii 1970 isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa in hubka nuclear-ka uu ku faafo dunida. Reduction the risk of war is not enough. yareynta khatarta dagaal in uu dhaco ma aha mid ku filan. baabi'inta hubka nukliyeerka waa damaanad qaadka keliya ee ah in aan weligiis la isticmaalin. waa in si aan laga daalin aan uga shaqaynaa sidii aan ku gaari lahayn yoolkaas. tanna waa in ay ka bilaabataa ballanqaadyo cusub oo noocyo badan leh oo ku saabsan hubka nukliyeerka oo ah in madaxa nukliyeer aanu dul hogaanin khatarna ku noqon aadanaha. So that they no longer hang by a thread over humanity. heshiiskaasi ka hortagga iyo xakamaynta faafitaanka hubka nuclear-ka ayaa waxaa horay u saxiixay 190 wadan. waxaana noqonayaa heshiiska kaliya ku saabsan xakamaynta hubka ee sida wanaagsan loo dhaqangeliyay. wadamada Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa ku adkaysanaya inay weli ka go'an tahay in hubkaasi uusan dunida ku faafin. waxayna sheegeen in dagaal dhanka nuclear-ka ah aan lagu kala adkaani doonin sida awgeedna ay tahay inaan bafaraha lala gelin. sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo Iran ay sii kordhinayaan halista dunida ay ka wajahayso hubka nuclear-ka oo haddii uu yiri aysan bedelin qaabka ay u dhaqmayaan. The DPRK continues to expand its unlawful nuclear program and continues its ongoing provocations against the region. waqooyi Kuuriya waxay sii wadaa in ay sii ballaariso barnaamijkeeda aan sharciga ahayn ee nukliyeerka waxayna daandaansi ku wadaa gobolka. inagoo halkan maanta ku kulansan qadana Pyongyang waxay diyaarinaysaa diyaarinta inay samayso tijaabadii toddobaad ee nukliyeer ah. Iran waxay weli ku taagan tahay wadadii ay nukliyeerka kor ugu qaadi lahayd inkastoo ay ku celinayso sheegashadeeda inay fulinayso heshiiskii quwadaha caalamku la galeen Iran. tan iyo bishii Maarso Iran waxay u muuqataa mid aan doonayn ama aan awoodin inay aqbasho heshiiska in ay raacdo hadafkaasi. haddii dib loogu laabto heshiiska natiijada ugu wanaagsan ay u noqonaysaa Mareykanka, Iran iyo caalamkaba. Getting back to the JCPOA remains the best outcome for the United States, for Iran, for the world. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isna dhankiisa waxa uu ku adkaysanayaa in dawladdiisu ay ka go'an tahay dhaqangelinta heshiiskaasi looga hortagayo faafitaanka hubka nuclear-ka. waxa uu sheegay in dagaal nuclear loo adeegsado aysan jirin cid ku guulaysan doonto. aad buu u mahadsan yahay Xasan Cali Gelle oo warbixintaas ilaa socodsiinay. guddiga xaaladda degdega ee cudurka yellow fever-ka
u qaabilsan dowlad goboleedka Gaarisa iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa tallaal 10 maalmood qaadanaya ka bilaabay deegaanada Lagdera bartamaha Gaarisa iyo Balambala kadib markii cudurkaasi dad qaba laga helay xadka ay wadaagaan ismaamulka Gaarisa iyo Isiolo. Roble Nunu waa wasiirka caafimaadka ee Gaarisa waxaana uuna u waramay Cabdiraxmaan Xaaji Caddo. xanuunkan yellow fever wuxuu muddo sanadkan bilowgiisa muddo 6 bilood laga joogo ayaa baaritaano la qaaday lagu arkay in hal qof aan Gaarisna ka helnay 2 qofna laga helay ismaamulka Isiolo. cudurkan inuu isaga yahay markaad ku ogaateen inuu yellow fever yahay qofka xanuunka waa ilbaa ku soo baxay marka qofka sampleska laga qaaday waxaa loo diray Cambridge iyo hay'adda caafimaadka adduunka isla baarayeen taasoo hal qof laga helo loogu tilmaama xagga caafimaadka inuu outbreak yahay marka sababtaas loo keenay lagu tashaday in tallaal la siiyo daawo ma laha tallaal buu leeyahay marka hore waxaa loogu talagalay inaan 6 gobolba in laga tallaalo laakiin marka dambe waxaa lagu soo go'aansaday 2 county oo hadda laga helay khaasatan ayagoona dhan aan ahayn degmooyinka ay xuduudda wadaagaan 2 county in laga tallaalo waayahay marka qofkan aad sheegtay in hadda Gaarisa laga helay adigu hadda Gaarisa joogto maxay yihiin markaas taamaha aad ku aragteen qofka ee looga shakiyay marka horeba xanuunka horta astaankiisa badana waxyaabo badan uu qabo laakiin waxa toos loo arkaa waxa indhaha cagaartaan qofka marka waa cudur faafa ayaa tiri marka sidoo ku faafa wuu faafa waxaana faafisa kanaacada faafisa dadka isku taga hata ama isla jooga hata way isku faafiyaan marka faafitaankiisa marka intuu gaarsiisan yahay ma dadku inay istaabtaanba ma dadka inay wada cunaan mise kulan kale dadku inay yeeshaan heer ku gaarsiisan marka cudurrada kale loo fiiriyo horta waa cudur la iska qaado waa cudur la isku gudbin kara marka faafintiisa waxaa waaye dadka inay uu ku faafi karo isla jooga is araga iyo kanaacada u kala wareegto sidaas oo kale waay marka marka ugu horeysay waa cudurkan Gaarisa laga helo waa marka ugu horeysay ma dhahayno laakiin waxaa waaye marka ugu horeyso oo loo qasiday in la howlgalo oo laga ogaado marka haddii mar aad ogaateen cudurkani qofka laga helay inuu yahay yellow fever baaritaan aad u dirteen maxaa marka tallaabo aad qaateen horta tallaabada aan qaadnay waxaa waaye horta qofkii la daaweeyo daawada malaha qofka waan ogaaday waana la karantiyey Isiolona waa laga ogaaday sida camal baa la yeelay marka kulankaas la qaatay labada dhinacba marka go'aan waxa lagu gaaray annaga iskaashanayna hay'adaha dawli in tallaal la sameeyo khaasatan xuduudda degmooyinka labada county waayahay marka ma jiraan qofka cudurka haleelo dadka kale si ugu faafinin ama ugu qaadsiinin tallaabooyin looga hortagi karo oo bulshada la wadaagayso waxaan soo marnay covid dadkeenana wuu dhib badan yahay in la dhaho qofka la iska ilaaliyo ama qofka saasa loo karantiya muhiimadda waxaa way qof walba inuu tallaalka qaato khaasatan hadda tallaalka waxaan siinaynaa xanugii dhalan ilaa 9 bilood ilaa iyo 59 wixii jiro sanadkooda uu gaarsiisan yahay aan tallaalka siinaynaa tallaalkaas hadda saan u bilownina waxa caqabad kala kulannay ma laha marka wadada ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa inuu qofka tallaalka qaato waad ogaanaysaa horta tallaalkan baadiyii hore haddii aad waddanka ka bixayso waxay aan jirtay qasab qofkiin la tallaalo marka hadda waxaa waaye tallaalkii oo horaan lacag ku bixiysaan bilaash ku keenay oo dadka aan tallaalayna dadka waxaan leenahay tallaalka la qaato maanta maalintii 10aad ay noo tahay tallaalka intaan wadnay ilaa hadda tanan 171 qof iyo 736 baan tallaalnay targetkeenina laakiin wuxuu ahaa 263 kun oo qof inaan tallaalno oo countiga oo dhan aad gaarsiisaan tallaalka ma hadda waxaan ku koobanahay Garissa Township Balambala iyo Lagdera insha Allah wali tallaalkii wuu noo sii yaala kayd baa noo yaala hadda laakiin maanta waan joojinaynay wataakasana waxa uu ahaa Roble Nunu wasiirka caafimaadka Gaarisa oo u waramay Cabdiraxmaan Caddo haatan aad dhinaca ciyaaraha Lionel Messi ayaa ka caawiyay kooxda PSG inay si fiican ku bilowdo xil ciyaareedka kadib markii 4 iyo eber ay kaga badiyeen kooxda FC Nantes ciyaartii dhawaan dhacday maalinimadii xadii ay niraahne waxaana markaas uu noqday ciyaartooyga 41 koob ku guuleysta intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka subaxnimo